kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkan waa barteena bilan ku soo dhawaado wararka maanta aan idin helina waxa kamid ah doorashadii maanta lagu waday in lagu qabto magaalada Beledweyne oo baaqatay iyo Hirshabeelle oo war ka soo saartay shir looga hadlayo joojinta dhuxusha Soomaaliya oo lagu qabtay magaalada Nairobi midowga Afrika oo ku baaqay xabad joojin degdeg ah oo dhaxmarta Ruushka iyo sidoo kale Ukraine iyo waxaan kaloo idin haynaa wararkii ugu dambeeyay ee doorashada golaha shacabka Soomaaliya iyo tirada xildhibaanada la soo doortay iyo kuwa harsan ee u diyaar garooba wararkeena maanta maqal aragti wanaagsan daawadayaal mar kale waa sabti taariikhdu ay ku baagan tahay 26 bisha 2 sanada 2022 oo diyaar garoow wararkaas oo dhameystiran waxaan ku bilaabeynaa doorashada maanta lagu waday in lagu qabto magaalada Beledweyne ayaa baaqatay iyadoo oo maamulka Hirshabeelle gaar ahaan guddiga doorashada Hirshabeelle ay warka soo saareen guddiga doorashooyinka Hirshabeelle ayaa shaaciyay soo xulista ergada saddexda kursi ee kamid ah kuraasta deegaan doorashadu tahay magaalada Beledweyne saddex kursi ayaa waxa kamid ah kursiga Hob Eber 68 oo la filayo inuu ku soo baxo Maxamed Ibrahim Macallimu oo dhawaan ka soo laabtay dalka Turkiga oo loo geeyay in lagu soo baxnaaniyo dhaawac ka soo gaaray weerar la doonayay in lagu dilo guddiga doorashooyinka Hirshabeelle ee Siid ayaa waxa ay ku wargeliyeen dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo musharaxiinta in dib u dhac ku yimid qabsoomida doorashadii loo madlanaa in maanta lagu qabto sabab farsamo awgeed ayayna ku sheegeen baaqashada kuraastan maanta la filayay in lagu doorto magaalada Beledweyne 60 kursi ee soo socota ayaa doorashadooda la qaban doonaa maalinta biri ah oo axad ah Hob Eber 6 Hob Eber 22 Hob Eber 3 Hob Eber 32 Hob 252 iyo sidoo kale Hob Eber 68 shir looga hadlayay joojinta dhoofinta dhuxusha Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya dawladda Soomaaliya ayaa kulan looga hadlayay joojinta dhuxusha sida sharci darrada ah looga dhoofiyo Soomaaliya ku qabatay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya shirkan ayaa diiradda lagu saarayay waxyeeleynta deegaanka ay u geysato Soomaaliya iyo sidoo kale dhibaatooyinka ka dhasha iyo sidii loo qaadi lahaa tallaabooyin looga hortagi lahaa dhoofinta dhuxusha Soomaaliya safaarada Soomaaliya ee dalka Kenya ayaa martigelisay shirkan oo ay ka qayb galeen dalalka iskaashiga gacanta Carabta bariga Afrika iyo sidoo kale hay'adaha qaramada midoobay ee u qaabilsan horumarinta iyo sidoo kale deegaanka safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya Maxamed Axmed Nuur Tarsan ayaa sheegay in dhammaan dalalkii ka soo qayb galay shirkan ay qeexeen muhiimadda ay leedahay in Soomaaliya laga caawiyo sidii loo joojin lahaa dhoofinta dhuxusha oo halis ku ah Soomaaliya ayaa kamid ah dalal sida joogtada ah looga dhoofiyo dhuxusha iyadoo oo aan horay dawladda iyo sidoo kale qaramada midoobay u mamnuucday arintan midowga Afrika waxa ay ku baaqday xabad joojin degdeg ah oo dhaxmarta Ruushka iyo sidoo kale Ukraine midowga Afrika ayaa ugu baaqay dalalka Ruushka iyo sidoo kale Ukraine inay sameeyaan xabad joojin degdeg ah oo ay furaan wada xaajood siyaasadeed oo aan dib u dhac ku iman iyada oo ay garwadeen ka tahay qaramada midoobay sida caalamka looga ilaalin karo cawaaqib ka dhalan kara dagaal war qoraal ah oo ka soo baxay gudoomiyaha midowga Afrika iyo sidoo kale madaxweynaha iyo sidoo kale gudoomiyaha guddiga midowga Afrika waxa ay labada hogaamiye ku baaqeen in xabad joojin iyada oo la xusay in ay dani ugu jirto nabadda iyo sidoo kale xasiloonida iyo xiriirka caalamiga ah iyada oo loo adeegsanayo dhammaan shucuubta adduunka gudoomiyaha hadda midowga Afrika iyo sidoo kale madaxweynaha iyo sidoo kale gudoomiyaha guddiga midowga Afrika waxa ay muujiyeen sida ay uga walaacsan yihiin xaaladda aadka u daran ee khatarta ah ee hadda ka jirta dalka Ukraine waxa lagu yiri war saxaafadeed ay soo wada saareen midowga Afrika AU waxa ay ku boorisay Ruushka in uu ixtiraamo sharciga caalamiga ah isla markaana uu ogaado in ay lama huraan tahay ixtiraamka sharciga caalamiga ah maadaama sharciga caalamiga ah madax banaanida dhuleed iyo sidoo kale madax banaanida qaran ee dalka Ukraine ugu dambeyntiina waxaan eegaynaa wararkii ugu dambeeyay ee ku aadan doorashada golaha shacabka iyo tirada xildhibaanada la soo doortay ilaa iyo haddana kuwa la filayo in la soo doorto ee harsan
doorashada golaha shacabka ayaa waxa ay ka socotaa qaar kamid ah caasimadaha maamul goboleedyada iyadoo oo sidoo kale koonfur galbeed ay noqotay maamulkii ugu horeeyay ee soo afjara doorashada deegaanada labada deegaan doorasho ee Baraawe iyo sidoo kale magaalada Baydhabo. waxa ay shalay iyo toddobaadkii hore ee ku soo dhamaaday magaalada Muqdisho doorashada xildhibaanada Banaadirga iyo sidoo kale gobolada Waqooyi kuwaas oo doorashadoodu ku dhacday xiliyadii lagu heshiiyay iyadoo doorashada ay soo gabagabeeyeen 25 bishan. ilaa iyo hadda waxaa la doortay 179 xildhibaan oo ka mid noqonaya baarlamaanka waxaana harsan 96 kursi oo intooda badan ay ku dhiman yihiin Puntland, Jubbaland iyo sidoo kale Hirshabelle. waxyaabihii lagu heshiiyay waxaa ka mid ah in maamul goboleedyada kuraasta deegaan doorashadooda lagu qabto doorashooyinka xubnaha aqalka hoose hase yeeshee waxaa hadda muuqata in caqabadi ka jirto magaalada Garbaharey ee gobolka Gado. khilaafka ugu xoogan ayaa hadda waxa uu ka taagan yahay kuraasta taala magaalada Garbaharey ee maamulka Jubbaland oo uu si weyn isaga diiday in doorashada kuraasta taalo la shaaciyo maadaama dawladda dhexe ay ku eedeeyeen inay ciidamo badan geysay halkaasi. golaha wadatashiga qaran ayaa habeen ka hor waxa ay ku heshiyeen in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu guddi u saaro xaaladda magaalada Garbaharey si loo qiimeeyo in doorashada lagu qaban karo. toddobaadkan sidoo kale waxaa lagu wadaa in doorashada lagu bilaabo magaalada Kalkacyo iyo sidoo kale Boosaaso. guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa warkii aad ka daawanayseen barteena bilan daawada waad ku mahadsan tahay haddii aad nala joogtay ilaa iyo dhamaadka muuqaalkan waxaan ka codsanaynaa si xushmad ay ku dheehan tahay inaad noo sii shargalayso muuqaalkan si uu u gaaro saaxiibo badan sida adiga oo kale ah mahadsanid daawade.